Daafaha dunida waxaa jira waddooyin la aqoonsan yahay kuwa ugu khatarta badan adduunka iyadoo adag tahay in la maro. Dariiqyadan qaarkood ayaa nafo badan galaafta. Barnaamijkan ayaynu ku eegnaa qaar ka mid ah, balse kahor intaynaan barnaamijka bilaabin, fadlan subscribe saar kanaalka Daafaha Dunida adigoo mahadsan. Dariiqan oo loo yaqaano dariiqa cirka waxa uu ku yaalaa dalka Shiinaha. Dhismihiisu waxa uu qaatay in ka badan 8 sano iyadoo la dhammaystiray sanadkii 2006. Waxa uu dhulka ka sarreeyaa ku dhawaad 100 mitir isagoo dhererkiisu dhan yahay 11 kiiloomitir. Si aad dariiqan uga gudubto waxaad u baahan tahay inaad samayso ugu yaraan 90 wareeg. Dariiqa geerida. Dariiqan oo loo yaqaano dariiqa geerida waxa uu ku yaalaa dalka Bolivia. Waxaa loo bixiyay magacan kadib markii uu galaaftay nafo badan iyadoo lagu qiyaasay khasaaraha ka dhasha sanad kasta 25,000 oo gaari inay ku burburaan. Waxa uu ku yaalaa dhul buureed aad u khatar badan iyadoo khatartiisu ay sii barato xilliga ay roobku da'ayaan. Dariiqan waxa uu dhacaa dalka Switzerland. Waxaa loo aqoonsan yahay mid ka mid ah dariiqyada ugu khatarta badan adduunka. Sidoo kale waxa uu ka mid yahay buundada adduunka ugu dheer ee loogu talagalay inay dadku maraan maadaama uu yahay mid cidhiidhi. Looma ogola baabuurta inay maraan. Dadka ka gudbiya waxay cabsi ka qabaan inay ku dhacaan buundadan waxaana la dhisay 2004. Buundadan oo lagu magacaabo Rope Bridge waa dariiq halis badan. Waxa uu ku yaalaa waqooyiga Ireland. Waxa uu ka mid yahay dariiqyada ugu cabsida badan caalamka. Waxaana uu ku yaalaa meel buuraley ah isagoo dhulka ka sarreeya wax ku dhow 100 feet. Si aad buundadan uga gudubto waxaad u baahan tahay inaad socoto ku dhawaad 30 mitir. Baaritaan la sameeyay waxaa la ogaaday inaanay cidi ka dhicin buundadan, balse dadka dalxiisayaasha ay halkan soo booqda ayaa aad uga cabsada heer ay diidaan inay ka gudbaan. Capilano. Buundada Capilano oo ku taalla gobolka Columbia ee dalka Canada waxay dul martaa webiga Capilano iyadoo dhulka ka sarreysa 74 mitir. Waxaad u baahan tahay inaad ka gudubto 450 tallaabo. Dariiqan waxaa markii ugu horreysay la dhisay 1889 waxaana ku hareeraysan dhul iyo kaymo cagaaran. Markasta dadka soo booqda halkan ayaan ah kuwa ka cabsada buundadan. Buundada Michigan. Dariiqa Michigan waxa uu dhacaa gobolka Michigan ee dalka Mareykanka. Waxaa loo aqoonsaday mid ka mid ah bariishada ugu halista badan. Waxa uu ka sarreeyaa joogga badda 66 mitir. Dhererkiisuna waa 5 mayl. Cabsidu kuma eka dhererkiisa iyo jooggiisa, balse dabaysha ayaa mararka qaar ka dul qaadi karta. William Preston. Dariiqan waxa uu ku yaalaa Maryland, dalka Mareykanka. Waxa uu ka mid yahay buundooyinka ugu khatarta badan caalamka gaar ahaan xilliyada ay baddu kacsan tahay. Waxa uu ka sarreeyaa joogga badda 180 feet. Haddii aad gaari ku dul wadayso waxaad u baahan tahay inaad iska indhatirto khatarta ku xeeran. Wadayaal badan ayaana diida inay ku kaxeeyaan baabuurta.